بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo arrinka maalmahan ka socda youtube-ka iyo internet-ka oo ku saabsan wiil la yiraahdo Sharma Boy oo heesaa ah, wiil yar oo dhalinyaro ah oo 20 jir meelahaas u bata ah oo reer Puntland ah si meelahan mudug iyo ilaa garow mudug goboladaas ka yimid. wiilkaas Sharma Boy markii hore waxay is haysteen Daahir Calasow oo ku eedeynaya qashqashaad iga gelinayaayo heesahayga iyo muxuu ahay tadiito buu qashqashaad iga gelinayaayo Daahir Calasow baa yiri heesaan siiyay waxba igu haystaa inuu ibaado buu rabaa. oo dad baa u hiiliyay dadyow u hiiliyay lahaa wiilka iska daa maxaa ka rabtaa Daahir Calasow qabiiliistaa tahay calash u shaqaystaa tahay baa la lahaa oo bal difaacay wiilkan Sharma Boy-ga. waxaa jira wiil kaleeto sheekada hadda wax isu bedeshay waxaa soo galay youtube-ka soo galay wiil ooynaya oo is yaqaanaan tadiito Sharma Boy-ga oo Sharma Boy-guna ay saaxiib yihiin midha Sharma Boy-ga oo yiri waxa ay dilay Nairobi baa la igu dilay buu yiri. sheekadii waxay tagtay ilaa iyo Nairobi bay tagtay, Soomaaliya ku koobnayd, waxa la geeyay ilaa Kenya la geeyay Nairobi. oo waxa halka loo geeyay midkaan saaxiib la ahaa wuxuu yiri waxa ay dilay kana oo afka dhig kula baa inta soo galay meesha youtube soo galay baa wuxuu leeyahay waxa la igu dilay Sharma Boy dartiis baa la igu dilay, ogaadeen baa i dilay 10 nin ogaadeen ah oo soo dirsaday nin la yiraahdo Axmed Rashiid uu soo dirsaday 10 nin ogaadeen baa i dilay buu meesha kale laakiin haddana wuxuu ku darayaa Axmed Rashiid hooyaday baa la hadashay oo hooyaday wuxuu yiri aad baan uga xumaa waxa kugu dhacay kama warqabay arrinkaas waxna kuma leeyahay. Axmed Rashiid marka yaa waay Axmed Rashiid waa sargaal ogaadeen ah, waa sargaal ogaadeen ah oo maxaan ku iraahday tadiito ka meeshan isliiga xaafadda Soomaalidu deganta dukaamadii ay ku leeyihiin kuwa tuuga oo dhaca buu dadka kala waxeeya buu ka ilaaliya. hada ka ilaalintiisu ka ilaalin miyaytaa waa wax lagu baay wey. wuxuu sameynayaa tuugada kuwa ah suuqa ku toogtaa, wallahi suuqa ku toogtaa. waxa hadda ka hor laga sameeyay BBC-da waxay ka sameysay warka duubtay barnaamij ka duubtay Axmed Rashiid kan askarigan Soomaaliga ah oo looga duubay isagoo maaragtay wiil yar oo dhalinyaro ah Soomaali ah. hadda ka hor baan daawaday fiidiyogaas waa hore ahayd. wiil yar oo dhalinyaro ah Soomaali ah oo nin askari dilay oo Axmed Rashiid saaxiibkiisa buu dilay calaa itixaal wiilkan Soomaaliga ah. dadkii intuu isugu yeereen oo saa isugu yimaadeen baa wiilkii isagoo saa u jooga oo meel la isugu yimid intii dadka isugu yimid oo suuq ah buu wuxuu sameeyay wiilkii toogtay. wiilkii isagoo nafti ay ka sii dhacayso laakiin nafi wali ku jirto oo buu madaxa kor qaado markaas madaxa xabad u dhufto. waxa weeyaan waa arrin laga argagaxo hadduu xitaa qofku uu yahay maaragtay dambiile uu yahay de kolley wadamada tan sharciyada ay ka jiraan saaqa dadka looma galo. qofkii gumaadaha Yurub iyo Western iyo waxyaalahaas waa ka dhacan laakiin qofkii qof dila oo dadka wax gumaada qof baa intaasoo qof gumaaday haddana dee saa loolama dhaqmo. waxa weeyaan qofku waxaa la sameeyaa maxkamadda la saaraa, maxkamadda la saarana xukun baa lagu xukumaa. laakiin tuugada tanina wax lagu baay iyaguna maaliye dadka midiyay gelinayaan oo ilaynayaan dadkii masaajidka aadi waay dadkii wax gadan waay dadkii waa suuq ka soo waay meel laga mara baa la waay. tuugada wadamada kale ma ahan waxa weeye tuugo lagu baay dadkii laynaysa way. marka ninkaani waa ugaarsadaa asxaan uma galo ama Soomaali ahow ama ha ahaan ninka. marka sheekada tan waxaa jirta halka kan isu bedelaysa yacni majarteen iyo ogaadeen dagaalka ma dhexeeyo dad walaalaa weeye.
maxayd waxa aniga soo geliyay taas weeye waa dad walaalaa ma jirteenkii ogaadeenku waa wax ka dhaxeeya ma jiraan muxuu ahay tidita dad baa isku diraya oo raba inay dhexdooda ka shaqaystaan dadkan doonaya dhexdooda inay ka shaqaystaan oo ay ka dhex qarxiyaan dagaal qabiil iyo qurun bay Soomaalidu weli dabada ka wadaa oo ah aan isku dhufano labadan qabiil oo walaalaha aan isku dhufano ma jirteenkii ogaadeenka jarteenkiyo midda kale waxaan rabaa inaan la hadlo nimanka daaroodka ah siba hartida ah siba jarteenka ah oo meesha soo gelayo oo aflagaadeynaya ogaadeenka oo aflagaadeynaya muxuu haytadiito Axmed Rashiid iyo ogaadeenka Nairobi jooga wuxuu niman yahay ma jarteen afkiina xirta waliba nimanka dhalinyarada afkiina xirta darrada iyo fidnada aad wadaan daaya dadku waxay leeyihiin maxaan ku iraaday tidito xeer iyo dhaqan bay leeyihiin dadka weligeed baa dhib iska gaari jirtay wiilkan xataa annaga meesha wax lagu dhuftay ma jarteenna ma aha ogaadeen inuu yahayna lama hubo ogaadeen baa dadna waa leeyihiin dadna waxay leeyihiin waa ogaadeen dadna waxay leeyihiin hooyadiis baa ogaadeen marka muxuu ahay tidito maxaa ma jarteen marka meeska booska soo geliyo wiilkan yarkaa sharma bay la leeyahay oo shidada badan leh war adna meel fariiso hooy dadka qabiilo dhan dhib iyo shidaha u soo jiidina maxaa adiga dhibtiyo shidada ku geliyay maa meel fariisatid oo darahaaga wadatid oo heesahaaga wadatid waxaa wadatid meel fariisa sharma boyo war sharma boy ciddii la talin ka dhaha la taliso waxa weeye nimankaa galoo ma jarteen oo meesha ka dhuqdhuqle iyo harti ciday yihiinba waxa weeye ogaadeen afka ka bixiya ogaadeen afkiina ka bixiya walaalihiin weeye anigu ogaadeen waxba dhihi maayo laakiin ma jarteenka waxa dhahaya ogaadeen afka ka bixiya ogaadeen afkiina ka bixiya maaha muxuu haytadito labada qolo isoo kay mid weeye aniga waa labada walaalahay weeye marka laakiin ma jarteenow isku xishooda oo fikradda meeshaan ka dambaysa iyo ogaadeenka labadiinaba waa idin leeyahay waxaa ka dambeeya waxaa la rabaa laba qaylo walaalaa in la isku dhufto baa la doonayaa sheekada ka dambaysa intaas weeye wiilkan la jugujugeeyey ciduu yahayba ma aqaan hadduu ogaadan yahayna waa ogaadeen haddii hooyadiis ogaadan tahayna waa saas qola waxay leedahay axmed rashiid walaalkiisoo meesha soo galay wuxuu leeyahay ninkaani wuxuu qabaa naag ma jarteen oo naagtaa ma jarteen baa soo diraysa walaalo adna waxaas ka bax sheekada ka bax ma jarteen cidna waxba shuuxa shuqul kuma laha maxaan ku iraaday wiilkan sharma boyna ma jarteenku hala hadleen oo cumar maxamuud hadduu yahay ninkaasi ma ogu cidu ma jarteenka iyo cumar maxamuud inuu yahaan u malaynayaa hala hadleen iyagana oo meelaha fariisto shidada iyo dhibta iyo qaxarka hadaayo heesihiisa ha ku mashquulo muxuu haytadiito waxaa jira niman hartida nimanka ah oo waxaan buunbuuninaya oo waxaa kan wadwada war meel fariista ogaadeen afka ka bixiya meel fariista oo ogaadeen afka ka bixiya ogaadeen walaalaha weeye waxa weeyaan waa dadkaygii weeye waa annaga weeye ogaadeen walaalihiis waa ma jarteen weeye waxa weeyaan marka waxaas meesha ku joojiya waxaa ka hadlay arrinkan oo si fiican uga hadlay oo yiri Axmed Rashiid afka laga bixiyo oo arrinkaa ka warqabay Nairobi soo joogay nin sharaf loo mareexaan ah oo Ingiriiska jooga ninkaas arrinkan ka hadlay oo yiri Axmed Rashiid Soomaalida tan daba gashay faraha ka qaado waana run faraha laga qaada ninka Axmed Rashiid maxaa laga rabaa reerkiisa faraha ka qaada dadkaas meesha jooga hadda iyagu kuna qanacsan yihiin maxaa Soomaaliya joogto dusha ka saaray Axmed Rashiid ma idinku idinla jooga halkaasuu joogaa qoladii uu iyagu Soomaalida yaa ka dhibiya shida badan haddii ciddi la saaro qaaq bay dhahayaan iyaguba joogay marka waxa weeyaan nin reerkaas iyo dadka iyo Kenya jooga walaalahayna Kenya jooga dadkan Soomaaliya jooga horta faraha kala baxaanba wixii haddana ma jarteen iyo haytadiito ogaadeen wax dhibo dhex taalla meeshan ma jirto ee waxaa la rabaa in la isku dhufto midka kan la leeyahay Sheekh Baba waa jajus laftigiisaanba ka shakiyay wuxuu yahay ma aqaano muxuu rabaa dadka inuu isku diro muxuu xagee ka yimid isagu maxaa dhexgeliyay ma jarteen iyo ogaadeen dhexgeliyay isaga hadduu isagu ogaadeen yahay maxaa ma jarteen dusha ka soo saaray yaa yiri ma jarteen la soo safo war muxuu haytay war meesha tan war isku dir iyo shaydaannimo meeshan lama rabo
shaydaannimo iyo isku dur lama rabo dadku walaalo weeye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu